Culayska maskaxda aadanaha celcelis ahaan waxaa lagu qiyaasaa 1.5 kiilogaraam boqolka garaam oo ka mid ah nudayaasha maskaxda. Daqiiqadiiba wuxuu u baahan yahay 3.5 mililitir hawo aan kala joogsi lahayn. Magacan stroke micno ahaan waxaa loogu jeedaa joojin mise ku dhufasho, waayo wuxuu dadka ugu dhici karaa si lama filaan ah. Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu faaliga ka diiwaangeliyay sanad walba inuu ku dhaco dad gaaraya 15 milyan adduunka oo idil. 5 milyan ka mid ah way u dhintaan, halka 5 milyan kale ay naafo ku noqdaan haddii maskaxda qayb ka mid ah ay ka go'do mise ka yaraadaan. Qulqulka dhiigga wuxuu qofka geliyaa xaalad afkeena hooyo lagu dhaho faalig, halka afka qalaad lagu yiraahdo stroke. Taana waxay nudayaasha maskaxda ku keentaa inay ku yaraadaan hawada iyo nafaqada. Waxay unugyada maskaxda biloobaan inay dhintaan. Wuxuu dhibanuhu u baahan yahay gargaar caafimaad degdeg ah. In la helo adeeg caafimaad degdeg ah waxay yareyn kartaa waxyeelada maskaxda, gaar ahaan unugyada sii dhimanaya. Nasiib wanaag, faaliga intiisa badan dawo ayuu leeyahay, laakiin dadka qaar wuxuu kaga tegayaa naafo halka kuwa kalena ay u dhintaan. Calaamadaha lagu aqoonsado faaliga waxaa ka mid ah qofka inuu dhib ku noqdo la hadalka mise fahamka dadka kale, qofka inuu wejiga kabuubyo ka dareemo, qofka inuu curyaan ka noqdo gacanta mise lugta. Inta badan waxay naafadu u badan tahay hal dhinac, qofka inuu wax ka arki waayo hal mise labada indho. Madax xanuun haddii aad calaamadaha faaliga isugu shakido mise aad ugu shakido qof kale, fadlan la xiriir goob caafimaad. Hana sugin intay calaamadaha ka joogsanayaan, waayo hal ilbiriqsi xitaa way xisaabsan tahay. Waxay qalqal gelinaysaa soo kabashada unugyada maskaxda. Ururka National Stroke Association ka dhisan dalka Mareykanka waxay caddaynayaan in 10% dadka faaliga qaba ay sameynayaan soo kabasho dhammaystiran, halka 25% lagu arko naafo aan saameyn badnayn minor impairments. Waxaa muhiim ah in qofka sida ugu macquulsan loogu bilaabo habka soo kabashada iyo baxnaaninta recovery and rehabilitation. Meelaha ugu badan lagu sameeyo waxaa ka mid ah in dib loo baro hadalka, in laga saacido fahamka caqliga iyo kala saaridda, in dib loo tababaro dareemaha qaar, in loo sameeyo jimicsi. Waxaa jira 2 qaab ugu waaweyn keena faaliga. Waxay kala yihiin inuu xidhmo marinka dhiigga. Ischemic stroke waa faaliga nuuciisa ugu badan. Wuxuu dhacaa markay yaraadaan mise xidhmaan qayb ka mid ah dhuumanka dhiigga u sida maskaxda. Cilmi baaris bilow ah la sameeyay ayaa lagu sheegay in infekshanka COVID-19 uu keeni karo faaliga nuucan, laakiin ma ahan cilmi baaris 100% la xaqiijiyay. Inuu dilaaco marinka dhiigga hemorrhagic stroke wuxuu nuucani dhacaa markuu marinka dhiigga maskaxda uu dilaaco. Waxaa keeni kara waxyaabo badan sida dhiigkarka, xanuunada ku dhaca marinka dhiigga, dhaawaca sida shilgaari, daawooyinka loo qaato yareynta xinjirowga dhiigga. Xanuunkani waxaa u nuglaan kara dadka buuran, dadka ay ku yartahay jimicsiga, dadka qaba xanuunada sida dhiigkarka, sonkorowga, kolestaroolka, wadna xanuun, infekshanka COVID-19. Dadka da'da more than 60 years haddii la daweyn waayo, faaliga wuxuu keeni karaa curyaan, xusuus lumid, niyad jab iyo walwal. Waxaa luma isdaryeelidda qofka. Sida ugu wanaagsan loogu hortagi karo xanuunkani waxaa ka mid ah in la joojiyo cabidda sigaarka, in culayska jirka la xakameeyo, inuu qofka caafimaadkiisa kontarool ku sameeyo, sida inuu check-up isku sameeyo 6 bil mise sanad walba waa haddii uu qofku awoodo.